madaxweynaha Soomaaliland Axmed Silaaye iyo wafdi ballaadhan uu hogaaminayo oo saaka hirtii hore ka soo boqolay caasimadda Soomaaliland ayaa ujeedadiisu daaraneed u kurgalka xaaladda abaareed ee ka jira gobolada bariga Soomaaliland ayaa soo gaadhay magaalada Burco. Madaxweynaha iyo wafdiga uu hogaaminayo ayaa maamulka gobolka ka degmada mas'uuliyiinta kulmiyay qaar ka mid ah bulshada Burco si diiran ugu soo dhaweeyay magaalada Burco iyagoo kaga hortagay degmada Qoyta oo 20 kiiloomitir kaga beegan waqooyiga magaalada Burco iyagoona lulayay calanka Soomaaliland iyo caleemo qoyan. wafdiga madaxweynaha ayaa waxa ku weelinayay wasiiro ka tirsan xukuumaddiisa gudoomiyaha xisbiga kulmiye Muuse Biixi Cabdi qaar ka mid ah gudida abaaraha heer qaran iyo mas'uuliyiin kale. madaxweynaha iyo wafdigiisa ayaa loo soo galbiyay qasriga madaxtooyada Burco oo uu hooyan doono waxaana wafdiga ujeedada safarkoodu daaran yahay ka warbixiyay hafayeenka madaxtooyada Soomaaliland Xuseen Deer. Axmed Maxamed Silaayo wuxuu soo gaaray magaalada madaxda gobolka Togdheer Burco. safarka madaxweynuhu wuxuu daaran yahay inuu u kuur galo oo uu si rasmiya xog rasmiya uu ka helo arrimaha abaaraha afarta gobol ee bariga Soomaaliland oo ah gobolka Saaxil, Togdheer, Sool iyo Sanaag in uu madaxweynaha iyo waftigiisu ay soo indhayndeeyaan oo ay soo kormeeraan oo ay soo eegaan xaaladda rasmiga ah saamaynta rasmiga ah ee abaarta ay ku yeelatay dad iyo dunyaba iyo sidii gurmad midaysan oo iyo taageero loogu geysan lahaa dadka abaaruhu ay waxyeeleeyeen ayuu safarka madaxweynuhu daaran yahay. madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland isagoo jecel inuu dadkiisa la qaybsado dareenkan xanuunka leh ay keentay dhacdada dabiiciga abaaruhu wuxuu waftigiisan ballaadhan ugu soo kicitimay inuu ummaddiisa la wadaago u kuurgalo uu soo arko dhibaatooyinka guud ahaanba abaaraha ka yimid iyo sidii loogu samayn lahaa gurmad midaysan. gudida gurmadka abaaraha iyo taakulaynta ee qaranka ayaa xubno ka mid la socdaan madaxweynaha wasiiro badan baa la socda sida wasiirka madaxtooyada wasiirka xanaanada xoolaha wasiirka waxbarashada marwada koowaad ee qaranka wasiirka hawlaha guud iyo guriyeynta wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta. run ahaantii wafdigan madaxweynuhu saaka ka soo kicitay magaalada madaxda jamhuuriyadda Soomaaliland Hargeysa waa wafdi ujeedadiisu ay tahay kaliya inuu qaranka mas'uuliyadii uu hayay ummadda abaaruhu ay saameeyeen uu soo arko uu soo indhayndeeyo wixii caawimo loo geyn karo caawimada loo geeyo. caawimada qaar ayaa soo baxay oo ilaa 12,000 oo qoys ayaa lagu qaybiyay gobolada bariga Soomaaliland laga bilaabo Berbera ilaa barigeeda ilaa dhowr iyo 30,000 oo qoys raashinkii iyo biyihii lagu caawin lahaana waa diyaar. arrintaas ayuu madaxweynuhu iyo wafdigan culus ee hogaaminaya ay daaran tahay. caawana wuxuu ku sugnaan doonaa biidmillaahi kariim magaalada madaxda Burco gobolka Togdheer. inta wixii ka dambeeyana gobolada iyo meelaha magaranaysa abaaruhu ka jiraan ay madaxweynaha waftigiisu ay kormeer ku tagi doonaan. taasi ayaa aan jecelahay anigoo ku hadlaya afkii madaxweynaha qaranka Soomaaliland inaan warbixinta kooban saxaafadda aan siiyo guud ahaanba. madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Silaaye oo ku soo garab caraabay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ayaa kala kulmay dadweynaha iyo maamulka gobolka iyo degmada iyo mas'uuliyiinta gobolka Togdheer soo dhaweyn baaxad leh. Khadar Cabdirasaaq Salebaan Khadar Hanad muqbaahiyaha caalamiga Somali News magaalada Burco.